fatahaado ka dhashay biyo xireenka shirkadda tamarta ee Kengen ayaa waxaa cabasho xoogan ka muujiyay shacabka deegaanka Dolomidi oo sheegay in ay dhibaato aad u ballaaran ku keentay isla markaasina ay saameyn gaar ah ku yeelatay beeraha deegaankaasi. Beeraleyda deegaanka Dolomidi ayaa ugu badan dadka saameynta ay ka soo gaartay dhibaatada ka dhalatay fatahaadani iyadoo aysan ahayn tani markii ugu horeysay. cabashooyinka dadka deegaanka ayaa soo noqnoqday xilli biyo xireenada shirkadda aanan laga gaarin wax halwaara ah. Waa kuwan qaar ka mid ah dhibanayaasha oo la hadlay warbaahinta kulmiye. waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Kengen waxa inuu nooga liibayo injil wax la dhaho asaga ma hayno saacadan intaan taagan waxaan u malaynay gacanta wixii lagu hayo iyo nin walba meesha taagna la soo hortay dadkii ninkii dabaalka saay kii kala tag birna ma hayno beeb ma hayno waxaan rabnaa hadii la in dawladda meesha iyada wixii nagu dhacay inay noo guddo noo liibayso aan rabnaa Kengen ay maanta ka dambe nagu soo sidayn haddii maalin walba sidan oo kale nala yeelo wixii aan ku daalnaa waxaan oo kale u yahay wax alla wixii mucaarado oo dhibaato ka imaanayna noqonayna yaadidan hadee ilmaha in haday baqtiyaan silac maanta aan dhex taagana weliga anaga maana soo marin eega iyo xaaskan ka yaabaynaa iyo maska inuu noogu soo galo guryaha midda kale beer wixii la dhihi jiray hadduu geed ahaa hadduu badar hoose ahaa wax la haya ma jiraan way isku dhaqmatay biyihii quraalkay kor u gooyay gaarida qaadaysay wixii bir ahaa saddex injil baa meesha ku tagtay iyo wixii bayb ahaa iyo wixii bir ahaa oo beerta lagaga shaqaynayay hadduu gaari goomba ahaa hadduu yaamba ahaa hadday badiil lahayd hadduu reeg ahaa wixii beer lagaga shaqayno idil waan la wada ka saylaa male waxaan hayla male waxaa la yidhahaa Faadumo Cabdulaahi Budul ama jaalleedii Dolomidi dhibaato weyn baan soo gaartay beerihii aan ku dhamaanaynay sanadkan hadda wiigi aan soo dhaafnay beertan hadda aad arkaysiin in muuqato waxaan galiyay 700 oo indhiisi cambadi lama arkayo liintii laga raray gaarida malaho dhibaato weyn baa meesha markaas nagu qabsataa dhaamka biyaha la soo siiday aniga ninka mukaambada ahaa oo meesha ii jooga ya Allah meesha uga soo baxay anigoo been sheegaynin oo bil Ramadaan baan ku jirnaa birihii wuxuu dhahay geed baan saaray waan ka soo dhaqaajiyay qarihii aan intaasoo kun ku soo gaday asagoo banaanka isku fidiyay qasaare xoog leh baa meesha iga soo gaartay ragga indhiisiga ka tagay waxa cambada ka duntay ilaahay baa loo sheegtaa si kastaba ha ahaatee shirkadda ayaan wax jawaab ah ka bixinin dhibaatooyinka ka dhashay biyo xireenka iyadoona ay soo tarayaan qasaaraha iyo walibana dhibaatooyinka ka dhasha fatahaadaha sidan oo kale Cabdicasiis Siyaad warbaahinta kulmiye.